xildhibaanka aqlabiyadda golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Barkad Jaamac Batuun ayaa dagalka uu ku leeyahay barta Facebook waxa uu soo dhigay qormo uu ka qoray bilowga waxbarashadiisii heer jaamacadeed iyo qaabkii ay ku bilaabatay oo ah qiso cajiib ah. xildhibaanku qormada uu qoray oo uu ciwaan uga dhigay abaal iyo ogaal ayaa ku bilaabatay sida tan: waxaan joogay raysla walaalkay ku lahaa suuqa xagga ay hadda ku taalo shirkadda Sagalje dhabarkeeda dhanka bari xiga. waxaa maalmaha socotay diiwaangelinta ardayda jaamacadda Hargeysa galaysa, markaas ma haysan wax adduun ah oo aan isaga bixiyo jaamacadda kulliyadda sharcigan inaan galaan rabay. hooyaday ma shaqayso, aabahayna ma noolayn, Allahu naxariistee walaalkayna ma awoodo inuu iga bixiyo ehel kale oo aan adduunka ogahayna ma jiraan. saaxiibo dhaqaale lehna ma haysto. xasan daahir nuur xasan busta ayaan waayahayga la wadaagay, waxaanan u sheegay inaan ahay agoon aan aabba lahayn, adduunna uusan oga dhiman, jecelna aqoonta sanadkanna jaamacadda raba inuu galo. xasan waa nin naafo ah, isagana sidoo kale adduun kuma ogi, balse waxaan isku qanciyey in maamulka jaamacaddu naafanimadiisa ku tixgelinayaan, lagana yaabo deeq waxbarasho isaga dartii inay igu siiyaan. xasan wuxuu alle u dhaliyey gobonnimo, wuxuu markiiba igu jawaabay, waan ku raacayaa ee waa inoo berri, isaga oo ka garaabay duruufaha dhaqaale ee noloshayda ku gadaaman. muddo hadda laga joogo 17 sano ayaa subaxay saacadu tahay 9:30 aanu bas jaamacadda Hargeysa tagayay ka wada raacnay saldhigga dhexe hortiisa ama heegada aniga iyo oday xasan. maalinka rajo weyn ayaan qabaa oo ah inaan jaamacadda bilaash ku dhigan doono. inta aan baska sii wada saarnayn waxa aan ka fikrayay oo aan isweydiinayay su'aalo badan oo aanan xasan la wadaagi karin, kana mid ahaayeen haddii ay suurageli weydo xageed lacag ka heshaa, qorshe iyo qaab aan howlaha nololeed ee igu hareeraysan aan ku wajaho ayaan isweydiinayaa. warwar iyo walbahaar badan ayaa ay haystay, haddana markaan xasan arko rajo ayaa i galaysay. qalbigayga ilmo aanu xasan arkayn ayaa ka tif leh. muddo kadib waxa aanu soo gaarnay beerkii jaamacadda, baskii ayaan ka degnay, waxaanuna galnay jaamacadda. waxaa albaabka joogay askari aan filaya inuu magaciisu ahaa Yuusuf. xasan ayaa weydiiyey ma joogaa guddoomiyihii jaamacaddu. haa ayuu ugu jawaab celiyey. xafiiska guddoomiyaha jaamacaddu wuxuu ku yaalay albaabka hoolka jaamacadda agtiisa, ismaa ugu soo sokeeye weeye. neecaw udgoon oo aanu xasan urin karin ayaa sankayga saaqaysa, oo ah xiisaha tacliinta iyo deegaanka aqooneed aan lugaha soo geliyey. rajo iyo boqo ayaa labaduba ilaab qaadaya. waxa aanu bannaanka xafiiska ku aragnay guddoomiyihii jaamacadda. salaan iyo soo dhoweyn kadib wuxuu xasan u sheegay hawshii aanu u soconay. guddoomiyuhu wuxuu ahaa Cabdi Heybe. gudaha xafiiska ayuu nala galay isaga oo aan jawaab bannaanka nagu siinin. farxad iyo hididiilo ayaa i gashay. mar labaad waxaan hadalladii xasan Cabdi Heybe ku lahaa aan ka sii xasuustaa. inankani waa agoon, adeerna waanu ahay, waxaanan u naafoobay dalkan, waanad og tahay xaaladayda, waxaana laga yaabaa inankaas inuu noqdo mid dalka anfaca oo loo aayo. Cabdi si naxariis leh ayuu igu yidhi, adeer magaca Barkad ayaan ugu jawaabay. wuxuu yidhi waad barakaysan tahay, berri warqad codsi ah ii soo qor oo ii keen shahaadadaada dugsiga sare iyo 2 sawirna soo raaci. odaygana waxba ha soo kallifin, boorka jaamacadda ayaan hor dhigayaa haye ayaan idhi aniga oo faraxsan. sidii ayaan yeelay. maalintii labaad kadibna waxa aan galnay imtixaankii kulliyadda sharciga, waxaana noqday ardaygii 7aad ee imtixaanka ku soo baxa. muddo bilo ah kadib waxaa 4 sano ee waxbarashadayda bixisay hay'adda UNBD oo dadka danyarta ee kulliyadda dhigta ka bixin jirtay iyo hablaha, waxaanay soo marin jirtay wasaaradda cadaaladda iyadoo kaashanaysa maamulka kulliyadda sharciga iyo qaybta legal clinic. xafiiska wasiirka cadaaladda ayaa la nooga yeedhay, foomam ayaana laga bixiyey, sidii ayaa qaybta maaliyadda ee jaamacaddu nagu siisay kaadharkii jaamacadda. waxaa xusid mudan wasiirkii markaa saxiixay deeqdayda waxbarasho ee wasaaradda cadaaladda, wasiirka ka ah inaanu hadda wada nahay 2 xildhibaan oo ka wada tirsan golaha wakiilada. xildhibaan Barkad Jaamac Batuun ayaa qormadiisa sii raaciyey, oday buste maanta ayaan ku casuumay hotel Jirde, dibna aan ula wadaagay waayihii iyo warkiina dhex maray 17 sano ka hor. waxa aan u sheegay in aan ugu magac dari doono jaamacad ama dugsi sare oo aan mustaqbalka dhisi doono haddii Rabbi idmo. qisadana waxa ay hordhac u tahay buug aan dhawaan ka qori doono halgankaygii nololeed. insha Allah ayaa uu ku soo gabagabeeyay qormadiisa xildhibaan Barkad Jaamac Batuun. xildhibaan Barkad Jaamac Batuun ayaa qofkii labaad ee ugu codka badnaa marka laga soo tago
cabdikariin mooge maayarka caasimadda hargeysa doorashadii somalilan ka dhacday 31 bishii May ee sanadkii 2021